wararka laga helayo dalka South Africa ayaa waxa ay sheegayaan in booliiska dalkaasi ay wadaan dadaalo ku aadan sidii loo badbaadin lahaa hantida ganacsatada Soomaalida ku nool dalkaasi iyadoo gobolada qaar ee dalka South Africa ay ka soconayaan ajaanib nacayb iyo sidoo kale isu soo baxyo dadka muwaadiniinta dalkaasi South Africa ay sameynayaan waxaana jira goobo badan oo Soomaalidu ay leedahay oo la boobay iyadoo dhaawacyo la xaqiijinayo in Soomaalida dalka South Africa ku ganacsanaya ay soo gaareen wararku waxay sidoo kale inta ku darayaan in aanay jirin wax dhimasho oo Soomaalida soo gaaray marka laga tago ajaanibta dalkaas ciidamada booliiska ayaa waxa ay gacanta ku soo dhigeen ilaa hadda in ka badan 70 qof oo South African kuwaas oo qayb ka ah kuwa rabshadaha iyagu halka ka wada madaxweynaha dalka Koonfur Afrika ayaa dhankiisa sheegay in wax laga xumaada ay tahay in Soomaalida ku nool dalka iyo sidoo kale ajaanibta kale la dhibaateeyo waxa uu soo jeediyay in si degdeg ah loo joojiyo dhibaatooyinka halka ku soo kordhay qalalaasahan hadda faraha ayuu ka sii baxayaa waxa uu noqonayaa mid wajiyo badan yeesho taasi oo aan loo baahnayn waa in la joojiyaa si degdeg ah dadka waxaa looga baahan yahay inay xaliyaan wax walba sida ay horeba u sameyn jireen waana inaan xalinaa oo aan u xalinaa si dimuqraadi ah ma noqon karto marmarsiinyo qof South Africana inuu hantidooda ku banaysto dad kale mana aqbali doono labadii maalmood ee u dambeeyay dalka South Africa qaar kamid ah gobolada halka ku yaala waxa ka jira dhibaatooyin xoogan iyadoo wali walaac ay muujinayaan ganacsatada ku nool dalkaasi oo ku aadan in dhibaato hor leh ay ka soo gaarto ajaanib nacaybka dalka wali ka soconaya